waa gartay bulshadu iyagu waa kuwa la hogaamiya had iyo jeer bulshadu marka sidee bay ku garan karaan hogaamiyahooda inuu wanaagsan yahay in kale hogaamiyuhu hadduu dad cafin karo waa inuu tanaasulo cafintu laftirkeeda marka ka tanaasulo oo dhibkii lagu geystay iyo wixii dhan iyo wixii aad tabanaysay ayaad ka tanaasulaysaa inaad iska dhaaftid oo aad cafisay kuna waxaan wanaagsan daawadayaal idinkiiba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo idinkaga imaanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaasina aad ka daawanaysaan telefishinka Soomaaliya Cable waxaan ahay Cabdulqaadir Umar Cabdulle waraysiga gaarka ah waxaan ku waraysan doonaa haddii Allah uu u qadaro Bashiir Cabdi Maxamed Bashiir Balcad oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ah wiil dhalinyaro kuna wax bartay gudaha dalka isla markaasina waxbarashadiisu heerka master degree ay tahay Bashiir marka hore ku soo dhawow telefishinka Soomaaliya Cable anagoo kaaga mahadcelinayno ogolaashahada waraysiga inaan ku weydiiyo ومحسنتين وإذن مهد علينا يا تلفزيون كي ورياش يا دمان برنامج كان قيمها بدن وهدي وعزونتين وكم محسنتين مرلبا. وقتها بشير أبا ما سنت هاي كورنتا ورئيسنا نقول لنا حاجة على هنا من الفيديو فسمي قناة ذي كامل معنا التلفزيون كالسوالي كيبل حرمها من مدشة لندن وكان مقالة من مدشة حاجة برسمة بشار إبراهيم وجرا حاجة كالمدن كان عبارة عن هذا UK ومركزي ساعديه بشير مركز سولو توبي عن كوري صندوق أو موضوع عن كوري صندوق بشير هذه لها ودل وسامع الحويان هو كان وناقة إسعافينتا يوم سوى التنازل كان بشير طبعا وسدح موضوع أساس سنة كورنتا أنا ورئيسي كان شخصيا بشير طلعت وكما بكر وحنا قرن تاريخ على هيك أخبار شيء مليه كدونا صومتي وحوار الشارع اللي هي كدونا لا يهمك ما أنت ناطر الشوط. بسم الله وقرن مجا بشير عبد محمد بلعت وحنقول شيء مقالة بلدوين أنا قاعد وير يعني كيمت حمران ما هذا دكسي جيجا قرآن كا هوسد حسرة باجولار كي مستر كبا حمران كودكتاي هذا نيجان جوجا experiences بدن أو شقنا والله يا حي وحكلو جرتو وحياله بدن وين تان حمر جوجا عن قبطي وأي كمية تهي قريستا إن نوح بدن كقري leadership كا لك جرب بدن أن كجيدي ولينا وحنكجرا حول حص oo leadership ina ka hadlo iyo inaan wax ka barto shaqadeedu ugu badan waa taas hadana waxaan ka shaqeeyaa shirkad kamid ah shirkadaha Muqdisho shaqadeedu tahay bank service bangiyada bangi kamid ah ka shaqeeyaa oo bangi xamar marka waa tahay Bashiir aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormareynaa topiga hoggaan wanaagga markaynu leenahay hoggaan wanaag dabcan waa wax waqti badan ku farqay baahan laakiin لو حسوا لي دون هذا وياش أنت اللي تعاوننا يعني كذا أما موضوع عن الشغلي وحده ويراني كفاية زمان هذه الله والموسم بل هجان وناق كمان كان هذا حيته سفي عن هجان وناقو مركل اللي هي مركو هجان كان وناقسية هي اللي هي وحجر السفوين waxa hadii sifooyinkaas ku sifoobaan oo hoggaanka wanaagsanaanayo hadii sifooyinkaas laga waayana hoggaanka mid aan wanaagsaneyn uu noqonayo hogaamiyaha wanaagsan ama hoggaanka wanaagsan waxyaalaha lagu garto waxa kamid ah inuu ku sifoobo sifooyinkii diinta sida runta cadaaladda sinaanta inuu ilaaliyo waxa kamid ah waxyaalaha ku iscafinta qofka hogaamiyaha wanaagsan markuu yahay waa inuu wax cafin kara asigana la cafin kara tanaasul uu sameey kara hadii la dhaho qofkan hogaamiye wanaagsan waxa soo sifay ayaa looga baahan yahay ama hoggaanka wanaagsan dawladda ama bulshada hoggaanka wanaagsan ay haysato sifooyinkaas ay exar garaysaa oo ay ku dhaqantaa mar walba ay sifadaas ku dhaqantana hoggaan wanaagsan bay leedahay balle hadii la waayo hoggaanka wuu xumaanayaa marka hoggaan wanaagsani waa sifooyin kuwaas iyo kuwa kale badan oo la isku geeyay oo mar walba dadku ay access gareeyaan si hoggaanku uu wanaagsanaado
waxa kale waxa igu weydiisay cafinta iyo waxa barnaamijka kamid ah iyo istanaasulka cafintu iyo istanaasulku waa laba shay oo isdaba yaalo مثلا qofka markuu wax cafin karo uu tanaasuli kara markuu tanaasuli karana wax uu cafin kara waxa jiro waxyaalo badan oo ka horeeya cafinta iyo tanaasulka qofka hogaamiyaha wanaagsani laakiin midii soo jiraan hogaamiyaal wax cafin kara laakiin hadana tanaasulku si fiican markii iscafintu goormay imaataa markii la is qabsado oo ay dadku wax isku qabsadaan oo problems ay dhacaan problemkaas in la xalliyo mararka qaar waxay qayb ka noqon kartaa tanaasulka iyo iscafintu mar walba tanaasulka waxay laftirkeeda qofka ku imaaday dhibka ku geystay ama fardiha ama mujtamac dhib laga galay ahaado cafintu qayb badan ay leedahay oo la isku cafiyo ilaa heerar ay leedahay heerku raba ha ahaado qofkii dhibanaha ahay markii loo imaado ama bulshadii dhibanaha ahayd ee cafis la weydiisto inay xaqi iyo dhibaatadii wixii lagu sameeyay ay ka tagto cafisa dadkan laftirkeeda tanaasul ah haddii ay dhahdo annaga dhibkaas nagula sameeyay cafiskaas ma cafinayna qofkan jaamaysan tanaasulin hogaamiyuhu hadduu dad cafin karo waa inuu tanaasula cafintu laftirkeeda mararka qaar tanaasul ah oo dhibkii lagu geystay iyo wixii dhan iyo wixii aad tabanaysay ayaad ka tanaasuleysaa inaad iska dhaaftid oo aad cafisid hoggaan wanaagga marka laga hadlayo madaxda ama hogaamiyaasha caalamka markay isu soo sharaxayaan ama ay tartamayaan waxyaabo badan oo ay ka dhawaajiyaan baa jirto oo ololahooda doorashada inta lagu guda jiro oo kale oo ay leeyihiin wax baan qaban doonaa marka tusaale ahaan hogaamiyahaas oo kale inta waxyaabaha soo ballan qaaday markii uu waqtigiisa dhamaado waxyaabihii uu bulshada marka hore u ballan qaaday ama uu sheegayayna aysan waxba ka qabsoomin qofkaas ma hoggaankiisa ma wanaagsan ma la dhihi karaa si fiican markuu qofka ballan qaado ballanku waxay ka mid tahay astaamaha wanaagsan ee hogaamiyaha wanaagsan ee lagu garto annagu dad muslimiin aan nahay ma ugu sii jirno ballanku qofka aanan ballan lahayn diin ma lahan مثلا hogaamiyuhu haddii uu dhaho ummadda wax baan idin qabanayaa ay ku doortaan inuu wax u qabtay ama waxa uu heerarkiisaas u dhigay iyo macnaha buundooyinkaas uu u dhigay oo tan waan sameey doonaa haddii uu sameey waayo iyadoo wax duruuf ah oo hor taagan aysan jirin oo ka celinayo wuxuu noqonayaa hogaamiye guul dareystay ama aan hogaan fiicneen because ballankii uu qaaday muusan ka bixin ummadina wixii ay ka filanaysay muusan gaarsiinin bulshada oo dhan qof walba meel walba ugu jirana waa looga baahan yahay cadaaladu waa asal qofka waxa uu ballan qaaday inuu dadka u sameeyana waa qayb cadaalada kamid ah hogaamiyuhu haduusan cadaalad sameey karin oo ballankii uu qaaday uusan oofi karin waa hogaaminimadiisu way jaban tahay hogaan wanaagsan ma iman karo hogaanka wanaagsan wuxuu iman karaa markii hogaamiyaha uu wanaagsanaado hogaamiyaha markuu wanaagsanaado ayuu hogaanka guud iyo uu wanaagsanaa karaa that's why haddii uu jaba qodobkaas ballan qaadkii hogaankii wuu xumaaday hogaamiyihii wuu xumaaday hogaankana ma hagaagayo maadaama hogaamiyihii uu qof noqday oo uu ballankii ka soo bixi waay waa gartay bulshadu waa iyagu waa kuwa la hogaamiya hadii jar bulshadu marka sidee bay ku garan karaan hogaamiyahooda in uu wanaagsan yahay in kale waxay ku garan karaan sida uu dhaqmo run sheegista iyo wax qabadka مثلا gudoomiye degmad dooratay adiga oo shacab ama dadka degmadaas gudoomiye degmay doorteen gudoomiyuhu degmada hadii uu ballan qaado in mar damba qashin jid yaala aan la arki doonin waa inta uu meeshaas joogo inaan la arkin uu ku dadaala una ka dhabeeya sida uu qashinka meeshaas ugu nadiif ilaahay hadii asigoo jooga loo imaado qashin meesha yaalo waa hogaamiye beenaale ama waxa uu afkiisa ka dhahay iyo waxa uu qabtay labay kala yihiin differencehaasna waxa keenaya inuusan qofka daacad ahayn waxa uu ku dhawaaqay uu sameey waay waxay ku garan karaan ballamada run sheegida qofka waxa uu sheegay inuu ka run sheego waa sifooyinka ay ku gartaan waxa kale oo lagu garto waxa kamid ah dhimrinta hogaamiyuhu hooyadu maxay dadka kale ugu duwan tahay
hooyadaadu waxay dadka kale dhan ugu duwan tahay, way kaaga naxariis badan tahay, adigay kaa fakartaa, nolosheeda oo dhan adigaa bilow adigaa dhammaad u ah. Hogaamiyuhu marka hadduusan dhimrin lahayn, uusan ka fakaraynin waxa ugu badan uu juhdiga geliya aysan ahayn ummadiisa iyo problemska haysta sida loo xallin lahaay, ummaddu waxay arkaysaa inuusan daacad ahayn. waa waxyaalaha waxay ka mid tahay lagu garto hogaamiyaha fashilmay ama ummadda hogaamiyahan inuu kii fiicnaayo u baahnaayeen uusan ahayn waxyaalaha ay ku garto. waxaasaa ka mid ah iyo kuwo kaloo badan. masalan ummaddu markay rabto hogaamiye wanaagsan inay hesho, waa inay ka fakartaa qofkan ma yahay marka hore kriteeriyada lagu soo xushay inay noqoto kriteeriya sax ah. annaga masalan markaan waddanka joogno Soomaaliya, ama siyaasad ha ahaato ama meel kale ha ahaato, hogaanka sida loo doortaahe inta badan shacabka iyo dadka bulshada tadakhul badan kuma lahan. waa laga yaabaa qayb inay ugu jiraan laakiin kuma filno. inta badan matalaad ku filan hogaamiyihii ay rabeen uma helaan. positionska waxay u badan yihiin markii laga reebo labada position ee ugu sareysa ee qolada sharci dejinta iyo qolada hogaamiyaha guud ee madaxweynaha. inta kale waa lasoo magacaabaa ma maraan doorashooyin sax ah, ma maraan. marka Soomaaliya markii la joogo horta inta badan hogaanku iyo waxa laga rabay iyo miqyaas sax ama looga dhigi karo bulshada. laakiin markay bulshadu iyadu wax dooranayso, waxa muhiim ah qofkan marka hore ma ahay qof han leh oo waxan uu sheegaya at least qaban kara. marka koowaad waa horta inay taas oo fiiriyaan backgroundka qofka, wax qabadkiisa bulshada ula noolay, sida uu ula dhaqmi jiray, dhaqamadiisa gaarka ah, aqoontiisa, kartidiisa marka hore la soo eego. waxyaalahaas marka ka horeeyo in macnaha judgment hogaamiyaha la saaro. la hogaamiyahan waa marka taasa kamid ah. laakiin mar walba ay hogaamiyaha siduu raba ha ku imaado, mar hadduu imaado hogaan wanaaga waxyaalaha lagu qiimeynayo waxaa kowka ee ballanqaadyada uu ballanqaaday iyo sida uu ugu run sheegay waxqabadka. waa gartay. tusaale hadda bulshadu markay wax dooranayaan, dabcan qofka hogaamiyaha ah ay dooranayaan markaas quluubtiisa iyo qalbigiisu ma arki karaan. kaliya waxa ay wax ku dooranayaan waa qofka sida uu u hadlayo iyo waxyaabaha uu ballan qaadayo iyo inta badan sidaas ay u badan tahay. tusaale bulshadu marka ay qofkan hogaamiyaha ay soo doortaan, ay dareemaan, ay arkaan inuusan ahayn hogaamiye wanaagsan, isla markaasina in uu sii hogaamiyo aysan u qalmin. tusaale sidee bay ku dareensiin karaan bulshadu ama ay ugu tallaabi karaan caqabadaha haysta haddii uusan asigu hogaamiyuhuna uusan sameyneynin isbedel? sidee bay isaga bedeli karaan isaga qudhiisa? horta mar walba waxay ku xiran tahay sharciyada u yaallo iyo sida habdhaqanka nolosha dadkaas uu yahay. dunida caadiga ah ama daraasaadka laga sameeyo hogaankana, qofka haddii shalay doorasho uu ku imaadayo qof iyo cod ha lagu doorto ama guurti ha doorato ama bulshada dad matalo saxa ay soo doorteen, waxaa fudud inuu iska tago. maxaa yeelay si cad ayaa waxaa loo dhihi karaa anagu marabna waxaasaa ballan qaaday. waa ciddii markii hore awsaratigeeda awoodda laheed oo keentay ayaa waxay leedahay. laakiin Afrika markaa joogno way dhib badan tahay mar qofka haddii la saaro in laga dejiyo, waa problem badan iyo buuq badan iyo isqa qabsi badan inuu imaado. waxa keenayana waxa waaye systemka guud ee markaas ka jira wadamada ama Afrika. mideeda kale haddaan usoo laabto hogaamiyuhu, haddii la dhahaniyo how shaqadii waad ku fashilatay xafiiska ka tag, uu tanaasuli waayo, ma ahani hogaamiye wanaagsan. qofka waa aadana, markuu wax hogaaminaya duruufa qabsan karta, wax kasta ku iman karo. haddii shaqadii laga rabay uu ka gaabiyo, hogaamiyaha wanaagsani waa kan aqbalo dhaliisha. hadday dadku dhahaan warniya waa gaabisay iska tag, waa inuu tanaasulaahu tagaa. laakiin hadduusan tanaasulin waa dictatorship aa lahaa.
waa meesha inuu xoog ku sii jooda iyo awoodo kale oo meesha ku sii haysan kara ee wax kale u raadiya taasna waxay ka hor imaanaysaa qodobka aan ka hadlaynay oo compromiseska ama isu tanaasulida ay ka hor imaanaysaa hogaamiyaha naftirkiisa haddii uu dareemo inuusan ahayn hogaamiye wanaagsan soo isbedel ma sameyn karo qodiisa طبعا sidoo ku sameyn karaa marka waxa kaliya ku sameyn karo waxa uu sheegay inuu ka run sheego inuu nafsad ahaan isku dhiso inuu u laabto marjici مثلا anagu dad islaamaan nahay hogaamiyaha markuu ogaada inuu marjici u laabtaa marjicina waa akhlaaqda wanaagsan run sheegida u cadaalad sameynta dadka ilaalinta sinaanta astaamihii hogaamiyaha lagu garan jiray ee diintayna noo sheegto inuu laabto marjica waa inuu laabto haddii uu yahay conventional waa inuu u laabtaa dastuurta waxa uu yaalla waxa uu haleeyayna uu sax waa qodobka kaliya uu dib ugu soo laaban kara sumcada ahaata ama kalsooniha ahaato ku soo celin karo forgiveness tusaale ahaan hogaamiyaha hadda waqtigiisa dhammaysto qaladaad ama waxyaabo badanna uu ka galo dalka ama dadka bulshadu ma soo maxkamadaysan kartaa si fiican طبعا cafintu goormay imaataa yaa wax cafiyo horta hogaamiyaha markuu xilka ka dago waa la maxkamadeyn karaa laakiin waa inay ka soo go'daa dadkii uu matalayay oo xukunka u hayay haddii ay tahay arrimo kale arrimo dhaqaale arrimo siyaasad ay wax gadaal ka soo riixayaan waa gooni oo lagu bursanayo ama wax laga bursanayo qofka waa gooni sida Afrika in badan ka dhacdo laakiin sida caadiga ah hogaamiyuhu hadduu qalad galo markuu kursiga ka dago waqtigiisa dhamaado dadku wayna cafin karaan wayna ka argudsan karaan xaqay u leeyihiin bulshada laakiin waxa wanaagsan inta badan dadku inay cafiyaan haddaysan markaas boog taagan uu geystay aysan jirin مثلا qofka hogaamiyaha ahi musuqmaasuq uu sameeyay waxbuu ku dheelay marka heerka uu taagan yahay mar walba caqabadaha uu bulshada ku qabtay ay ku xiran tahay anagu dad islaamana hogaamiyaha haduu dil geystay cad bareer oo la og yahay diintu waxay ka qabtaa in loo wado ummaddu waa inay waxay xaq u leeyihiin ninkaas la mariya way cafi karaan waxaan ka hadlaynana waa forgiveness-ka marka cafintu maxay muhiimada u leedahay hogaamiyaha iyo bulshadaba markuu qadaadka simaado marka koowaad cafintu laba marba waxa ku faa'iido qofka wax cafiyay marka koowaad qofka qaladka ka galay markaad iska cafisid waxa imaanaysa adiga inaad baal ahaan ama aad nadiif noqotid oo murtaax aad noqotid maxay qofka markuu cuqdad qabo ama qof uu careysan yahay maanta dhan waxa ku soo laalaabta ficiladii dhacay wixii lagu sameeyay wixii laga haleeyay inta badan gudaha kama degana qalbi ahaan uma degana wuxuu ka fakarayaa inuu argoosto sida inuu maanta dhan waxa ku soo noqonaya xumaan oo nafsad ahaan xataa wax badan u dhimayso laakiin qofka markuu qofka sirriyal ah u cafiyo oo dhab ah qalbi ahaan uu nasanaya marka koowaad marka labaad qofka walaalka oo la cafiyayna asigana uu raaxaysanaya maxaa yeelay qof walaalkaayo waa ogtahay inaad xumaan ka samaysay walow kas u sameey way kuugu taagan tahay muxuu kuugu samay doonaa ma ku cafi doonaa ilaan qalad inaad gashaa ogtahay waxaad ka tiirayoonaysaa xataa inta badan qofka hadduuba damiir ku dambeeyo qaladka aad gashay laftirkeeda laakiin qofka markuu qofka cafiyo bulshaha ahaato iscafisay ama shakhsi cafiya aata cafintu faa'iidooyinka ay leedahay kamid tahay labada dhinacba inay nafsad ahaan u raaxaystaan marka koowaad marka labaad inay noloshii hore burburtay soo noqoto kalsoonidii inay soo noqoto waxaasoo dhan waxaa laga faa'iidayaa iscafinta markii la jooga Soomaaliya more than any other community ay muhiim noo tahay bulsho kasta markii laga soo reebo annaga tan ugu muhiimsan iscafinta Soomaalidu ma naxariis la oo dad aad u naxariis badan isgarab gala tacaawunka iyo ku fiican isu kaalmeynta waay laakiin waxa kaliya maqan waxa waaye macnaha real forgiveness ama wax loo yaqaano si dhab ah in la isku cafiyo
si dhaba in la isku cafiyo waxaa jira dariiqyo la soo maro masalan hadda ka hor nin saxaabi ah wuxuu imaaday naag macnaha qof oo asiga khaadim u ahaa baa wax ka sameeyay then aad u xanaaqay inaad dadka cafisid waxaa ka horeysa marka steps ka horeeya jiro masalan aniga maanta waxaad igu samaysay anigoo maanta xanaaqsan ma ku cafi karin marka hore waa inaan carrada dejiyaa oo aan isdejiyaa oo carradii aan baabi'iyaa hodamiyaa kadib processka kale cafinta u gudbaa ayadii maxay ahayd walkaadimiina alghayda walcaafina can innaas macnaha iyadoo ay carradii jirto carradii taagan tahay oo aad kulushahay oo neerfa ahaan kacsan tahay wixii kugu dhacay darteed dad ma cafin kartid marka hore waa inaad dejisaa carradaada then aad dadka cafisaa cafintu markaasay imaan kartaa processkaasay martaa cafintana bulshaduna hadday iscafiso oo iscafin dhaba ay la imaato waxaa imaan lahayd inay noloshooda isu tanaasulaan inay wax badan oo caqabado haddana haysta laga gudbo maxaa diiday soomaaliya markaana iscafin dhaba la isma cafiyo soomaaliya oo kale hadda tusaale ahaan waddanka wuxuu soo maray sanado badan oo dhibaato iyo kasoo dhacday dadku wax bay kala tabanayaan hadda bulshada Soomaalida iyagu inay iscafiyaan maxay soo kordhinaysaa maxaa soo kordhin kara hadii ay iscafiyaan nolosha dhan hagaagsananayso meesha ugu fudud nolosha dhan hagaagayso because bulshadu inay iscafiso waxay keenay in la wada noolaado dhammaan la wada noolaada si siman qofna uusan qofku xad gudbin qofna qofka kale uu ilaaliyo dhimrin la kala helo masalan dagaal la soo laabto hoggaanka iyo maraba inaan ka hadlo Soomaalida iyo sida hoggaankooda u yaala iyo sida hoggaankeena u yaala iyo inaan ka hadlo marabo ha ahaada mid dhaqan mid diineed iyo mid siyaasadeed inaan ka hadlo marabo laakiin iscafinta markaan u imaado Soomaalidu way isdishaa waxaad arkaysaa magaalo dad isla dhashay wiligood intii Soomaali la arkay meeshaas wada deganaay wili abtigiis iyo adeerkiis iyo habar isu iyo eedo waxaad arkaysaa dagaalkooda uu soo laalaabanaya sababtu maxay tahay dagaalku markuu dhaco marka koowaad si dhab ah looma eega bahasha meesha ka qorunsan tahay ciladaasi haata cilan bulshada gudeedaysata ama mid hoggaanka ma ka hadlay laakiin asbaabta keentay in iscafintu ay dhab noqon weyso gudaha Soomaaliya waxyaalahaas ka mid ah iscafintu markay dhab inay noqoto la rabo marka koowaad waa in la ogaado horta boogta meesha ay ka jirto marka labaad dadka imaanaya ama dadka matalaayo ayagu waa inay lillaahi ka tahay inay cafis qaataan xuquuqdana la kala guto masalan dagaal baa dhacayo waxaan macno lahayn la isku dagaalayaa umada baaba'ayso umada qaxayso waa la imaanayaa waa la geel qadanaya waxa leeyahay waa leys cafiye cafintaas marka rugniye adag kuma taagno saal hada Soomaalida oo kale inta badan waxa jira xeerar iyo waxyaabo ay u gaara oo bulshadu ay isku xaliyaan oo markii dib ay dhacdo odayaal iyo suldaan iyo waxba inta loo saaro la waxayaayo lagu kala waxaystaa marka xitaa taas oo kale iscafintoodu wax saxsan ma laha ma leedahay maya processka wuu saxan yahay laakiin waa in laga fiiri problemkan in la xalliyo waa mid la rabo mideeda kale tiirar adag in loo dhigo saysan mar kale u soo laaban tiirar adag in loo dhigo masalan maanta aniga adiga waa isqabsanay laba qof problema dhacay meeshii problema naga dhacay meeshuu raba ka imaado markaan dhahno waan iscafinay macnaheedu wuxuu yahay xalli dhaladan ka nahay macnaha wixii hore oo dhan waa ka soo tagnay waxaan nahay laba qof oo sidoo hore isku markii isbaranayeen waa in la ilooba waxaan oo dhan oo meesha laakiin boogta haday taagan tahay wixii la isma cafinin
cafisku af ahaan u dhacay laakiin si sax ah qulubta kama dhicin marka waxa laga shaqeyn la rabo waxa waaye marka koowaad boogta meesha ka qunufanta in la dhayo oo la ogaada dhibaatada lana ogaada sida ugu fudud ay ku dhamaan karto iyo laga taxadara markala waxa hadda soo celiyay inaysan markala imaanin marka waxaan leeyahay Soomaalida xoogaa dhankaas inaan sahlano oo mar hadii odayaasha isku imaadeen oo problemkii dadku is gacan geliya la kala tago then tomorrow hadana gocosho dambe ay imaato oo hadana meeshii ama in meeshii la tago loo dhawaado ama la tagaba mararka qaar oo dagaal iyo isor fadhiisa iyo wax ay dhacaan midada kala dadku in la baro waxa muhiim ah walaaltinimadu iyo wada dhalashadu inay ka weyn tahay waxa fududeynayo in la iscafiyo oo dadku isku tanaasulaan in la dhiso umada bulshada in la dhiso bulshada cida ay ku xiran tahayna marka hore ay ka dhaadhacsan tahay waxan kani wax taari inay wax soo daga wax hadda imaaday khilaafkan hadduu imaaday walow haba adkaadaba khilaafka laakiin khilaafka hadduu imaaday khilaafkan ka hor dad wada nool isku fiicana ahayn xiriira naga dhaxeeyay mid dhalmaha ahaada mid deegaana ahaada mid islaamnimo wax astaan ka weyn naga dhaxeeyay Soomaaliyeed marka in loo laabta asalkii mar walba oo la dhahnimo yahay waxaan hadday imaadeen wax ka weyn naga dhaxeeyo dadka meeshaas la tuso marka koowaad oo wixii ka weynaay ee noo dhaxeeyay la tuso oo aad macnaha dadka bulshada loo wacyi geliyo media loo marsiyo goobaha waxbarashada loo marsiyo dadkuna macnaha qofka markii lagu celceliyo waxa uu bartaa waxa ugu badan oo aan u baahanahay waxa waaye min masaajid ila iskuul ila media in dadka looga hadlo iscafinta iyo tanaasulka in macnaha waxay tahay asaliibta lagu burburin karo darbiyadan adag cuqdada ku salaysan ee dadka u dhaxeeyo ee soo laalaabta waliba waatahay wali daawadayaal waxaad la socotaan oo aad daawanaysaan waraysi gaar oo magaalada Muqdisho idin kaga imaanaya isla markaasina telefishinka Soomaali Cable aad ka daawanaysaan waxaan marti ku ah Bashiir Cabdi Maxamed Bashiir Balcad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo daayar isla markaasina aynu ka wareysanayno mowduucyada hoggaan wanaaga iscafinta iyo isku tanaasul Bashiir maadaama aad sheegtay in xagga siyaasadda ahaan Soomaalidu in uga hadashaadan doonayeen bal xagga bulshada eegayna iscafinta markaan ka hadlayno tusaale xagga dumarka inaga Soomaalida markaad eegto waxaad arkaysaa in haween is dagaalay dhowr sano ka hor 5 sano ka hor oo marka aad wax ka weydiiso ku dhahayo qof heblaayo islama hadalno muddo 5 sano 6 sano aynu dagaashano ma wada hadalno laga yaabo inay diris yihiin bal ka waran taa iyadana maxay dhibaatooyin ay keeni kartaa qof shakhsiyan qofku maxay dhibaato u keenaysaa horta niyow waxaan filayaa saddexda qof ee maalinta yawmal qiyaama ilaahay uusan la hadlin waxa kamid ah qof walaalkiis ah cuqdad u qabo ayala diinta ay aadka ugu digtay kamid tahay diiniyan horta bulshadana hadda haweenka kaligeed ma baa Soomaalida oo idil maxaa yeelay burburkii oo dhan waxa dadka kala geeyay oo in leys dilo leys dhaco keenay waa cuqdad leh iyo in aynu baranin iscafinta haweenkan waxa u maleynaa moodan wax badan ba kuma lehen laakiin si midada kale su'aasha ay weydiisay haweenku kaligood ma ahan way dhici kartaa mararka qaar issueska qoysaska la xiriiray u badan yihiin haweenka qoysaskuna waa meesha asalka umadu ay ka soo baxaan hooyadu haday maalin qof ay isqabteen 12 sano cuqdad u hayso ilmaha ka soo hoos kacay maalin walba arkayo familkan diriska ah ama maamadan diriska la ah ama qoyskan diriska la ah in aysan hooyada isla hadlin oo aysan dab kala qaadanin oo nooca isku fiicneen oo walimooyinka iyo xafladaha iyo waxa ka jira iyo farxadaha aysan wadaagin waxa iman karto inay ka soo baxdo bulsho u samaysan meelahaas labada dhinacba bulsho u samaysan in macnaha ay u fududahay qofkii ay maalin isku dhacan ba inay gooyaan bulsho u samaysan waana taas meelaha naga haysto guriga waa meesha laga unka akhlaaqda wanaagsan ee bulshada ay yeelato مثلا ilmahaaga ama qoyskaaga
haddaad bartid iscafintu iyo dadka in la cafiyo qalad kastoo jiro lays xiriiriyo waxaa fududaanaysa jiil fiican inuu soo baxo marka waa meelaha ugu muhiimsan oo la raba in laga bedela dadka guryaha waay maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku mahmaahdaa ritiga dambe ritiga hore saanqaadkiisu leeyahay marka hooyooyinka iyo aabayaasha iyo aqoon-yahanada iyo dadka role modeliska nooc ah Soomaaliya hadaan nahay qoys iyo bulshada role modeliska dadka ah ama ay dadku ku daydaan oo horjooga waa in ay lafsadooda u bandhigaan in ay marka hore guryahooda looga dhaqmo akhlaaqda wanaagsan mideeda kale haweenku mararka qaar wax isku qabsadaan issues aysan dadka inta badan fahmi karin ama anagu aan fahmi karin mana garanayo sida loo xalliyo kulay dadka khubarada ku iyo hooyooyinkan wax badan ka weydii doona ayaga noo faa'iiday doona laakiin cafinta bulshada guud waa in guryaha laga soo bilaabo iskuulada laga soo bilaabo jiilalka yar yar lagu tarbiyeeyaa in noloshu tiirarka ugu muhiimsan ay ka mid tahay inay bulshadu iscafiso hadduu qalad dhaco bulshadu inay iscafiso ay ka mid tahay waa gartay Bashiir haddaan ku soo laabano xagga tusaalahan haddaan eegno xagga qabaa'ilada Soomaalida dabcan waa la diriraayo dadku waa dad wada dago xoolahooda meel wada daaqaan oo meel ku wada dhaqan dagaalna mararka qaar wuu iman karaa laakiin inta badan marka aad eegto qabaa'ilada Soomaalida wada dagaalada soo kala dhex gala kuwa soo afjarma ma aha iyadoo gudiyo iyo dad loo saaro wixii la xaliyo ayaa haddana wixii ay dib u bilowdaan oo dhibaatadu way soo noqnoqotaa inta badan taas maxay salka ku haysaa xaggee wax ka qaldan yihiin sidee loo sixi karaa waxaan is leeyahay waxa isku imaada مثلا dhalinyara isdagaasho ama beel la isku dagaalo ama urur la isku dagaalo ama hanti la isku dagaalo ama si kale la isku dagaalo ama siyaasad la isku dagaalo waxa isdagaala inta badan bulshada ama labada dhinacba ay adeegsadaan oo isdagaal waa dhalinyarada iyo dad hubsita waxa noqdana waa qoysaska مثلا maanta wiil markuu dhinto dagaalkaas wiil uu ku dhinto hooyo ka dhintay aabbu ka baxay family ilmu ka baxay xaas inuu ka tagaa laga yaabaa iyadoo aan dhibaatooyinkaas gudaha ka jiro oo problem kan weyn uu koona aan la xallinin ayaa la isku imaanaya waxa la leeyahay si kora waxa loo leeyahay waa leeshii meeshii waa laga fara dhaqday waa la isku caana shubay waa la kala tagaya bulshadii gudahana problemski wili way la tacaalayaan oo ilmihii way agoontoomeen wax daryeel ma haystaan maamul u taagan oo dhahaysa aysan waxaan u soo laabanin ilmahan ku tarbiyeynayo in la iscafiyo oo noloshooda garab istaagaya ma jiro marka familki waxa ku taagan aabihin maalin heblo meeshaas uu ku go'ay ugaas iyo dhaqameed iyo bulsho iyo team gooni ah oo istaagayna ma jiro inay waxaas marka waxa isleeyahay caqabadaha ugu badan bahasha kora laga xalleeyahay gudaha hoose lama sii eego waxa markii inay soo laalaabtaan cuqdadii taagnaato iscafintu gaab gasho waxyaalaha keenay arrimahaas hoose waayaan isleeyahay oo aan la xallin aad ugu dambeyntii Bashiir Balcad ummadda Soomaaliyeed maxaad oran lahayd marka aynu maanta dhan waxaan ka soo hadalnay mawduucyada hoggaan wanaagga iscafinta iyo isku tanaasulka ugu dambeyntii maxaad leedahay bulshada Soomaaliyeed hadii ay jirto fariin ama hadal aad leeyso nafteeda anigoo ka bilaabayo waxaan leeyahay horta marka koowaad marjican leenahay ummaddu marjiceeda ha u laabato oo min qofka ugu sareeyo ilaa qofka ugu hooseeyo marjican leenahay marjicina u laabana marka labaad asaasiyaadka nolosha aan ilaalino oo qoysaska kow ka yihiin nafsadeynana aan barno
aan ku taxallujinno inaan iscafino maxaa yeelay cafintu waxay ka mid tahay waxyaalaha hoggaanka ee dadku ay nafsadooda bari karaan maxaa yeelay sabirka ka mid ah maxaa yeelay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh inama asabru bitasabur wa inama alxilmu bitaxallum macnaha sabarka waxyaalaha laysbari karo in bulshadu ay isku dulqaadato qofka walaalka maanta dhib markuu kaa soo gaaro inaadan hori ka go-anin oo aadan dhihin siduu kuugu sameeyey waa inaad ka aarsataa ee aad ka fakartid jaanibka kale haddii aad cafisid qofkan oo aad sabartid oo ilahay dartiis ku sabartid adiga ajraa helay problem kan ka weyn oo dhici lahay wuu baaqanayaa qofka inuu taxliiliyo macnaha problemkan mideeda kale waxaa badanaya oo aan raba ummadda Soomaaliyeed siba dhalinyarada inaan ka waaniyo oo aan ugu digo barnaamijyadan social media aad buu ummadda u qasay cayda ka socoto caatifada ka socoto iyo oo dadkii si kala geynay hadda sidaan sheegay media waxa kamid ah social media wili meelaha ugu saameynta badan oo kamid yahay oo daily qofka daqiiqad inuu san ka bixin oo laga yaabo wax walba oo la comment ama la share gareyn oo arkay marka uqdadaha iyo waxyaalaha iska soo horjeeda oo caatifada iyo siyaasadda ku salaysan inaysan dhalinyaradu ugu qayb qaadanin social media aqoonta iyo wanaaga iyo iscafinta iyo in laga hadlo tanaasulka iyo iscaawinta inay ugu hadlaan intii ay baabkan ugu hadli lahaayeen intaasaan kulley aan kusoo gabagabeynaa waa tahay Bashiir aad iyo aad baa u mahadsan tahay daawadayaal intaasi ayaana jecelnahay inaan kusoo gabagabeeyno wareysiga gaarka ahaa ee magaalada Muqdisho idin kaga imaanayo Soomaali Cable aad ka daawanayseen isla markaasina uu marti ku ahaa Bashiir Cabdi Maxamed Bashiir Balcad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo daayiro ku waxbartay gudaha dalka tan inta ku kulmi doona barnaamijkan kan xiga waa bahdi Soomaali Cable gaar ahaan asxaabta magaalada Muqdisho oo Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo anigoo ah iyo xagga kaamirada oo Farax Maxamed Aadan UK oo ku jiray farsamadii Bishaar Ibrahim waxaan idin kaga tageynaa inta dib u kulmi doona sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.